waxaa la ciyaari doonaa finalka tartanka koobka adduunka waxaana ku wada balansana xulalka Argentina iyo France waxaana la sugi doonaa xulka ku guuleysan doona caawa tartanka koobka adduunka ee sanadkan uu martigeliyay dalka Qatar. fadlan hadad ku cusub tahay laagino saar subscribe dhaysiina share garay barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka si asxaab badan u gaaro mahadsanidina. caawa xulalka Argentina iyo France ayaa isaga hor imaan doona finalka tartanka koobka adduunka kulan ka dhici doona garoonka Lusail Stadium. kulanka finalka koobka adduunka kadib wareega afardhamaadka markii ay kaga soo takhaluseen Croatia iyo Morocco. Argentina oo hogaaminaya Lionel Messi ayaa doonaya koobkii adduunka ee saddexaad iyo waliba midkii ugu horeysay tan ilaa 1986 halka France ay doonayaan isla koobkii saddexaad iyo waliba midkii labaad oo xiriira. Messi oo dunida dadka inta badan ay aad u aaminsan yihiin midka ugu fiican ee taariikhda inuu yahay ayaa rajeynaya inuu sii wado rikoorka gool dhalinta tartanka World Cup-ka adduunka wacdara uu haatan ka wado ee tartankani. Angel Di Maria oo la nasiyay kulankii afardhamaadka ayaa lagu wadaa inuu caawa ku soo bilaawdo halka daafaca garab ee Marcos Acuna uu ganaax ka soo laabtay una ku soo laaban doona shaxda caawa. Tababaraha Argentina ayaa la filayaa in shax 4-3-3 uu ku soo galo garoonka isaga oo xidiga lagu magacaabo Paredes ee qadka dhexe ka saaro isla markaana weerarka ku soo diro Angel Di Maria. Angel Di Maria ayaa saddexleyda weerarka kula midoobi doona Lionel Messi iyo daayarka sida lama filaanka wacdaraha uga dhigaya tartanka koobka adduunka ee Julian Alvarez. dhanka kale France ayaa ugu horeyn waxa uu soo wada laabtay xidigaha uu ka saameeyay caabuqa geela sida Andre Rabiot oo gebi ahaanba seegay kulankii hore. tababaraha xulka France Didier Deschamps ayaa ku jahwareersan xaaladda weeraryahanka Olivier Giroud kaasi oo xanuuna ka dareemaya jilibka ka hor kulanka caawa. Argentina waxay ciyaaraysaa finalkii lixaad kaliya. Germany oo 8 jeer ciyaaray ayaa ka badan taariikhda finalada koobka adduunka 1978 ilaa 1986 ayay ku soo guuleysteen tartankan ee World Cup-ka adduunka. France ayaa 4 jeer gaaray finalka tartanka koobka adduunka 1998 2006 2018 ilaa 2022 oo finalka caawa ay la ciyaari doonaan xulka Argentina. Argentina iyo France ayaa markoodii afraad ku kulmaya koobka adduunka laakiin Argentina ayaa badisay 2 kulan oo hore halka xulka France uu badiyay 1 kulan. France ayaa doonaysa koobkoodii labaad oo xiriira sidaas waxaa hore u sameeyay Talyaaniga 1934 ilaa 1938, Brazil 1958 ilaa 1962. Argentina oo kulankoodii koowaad Saudi Arabia guuldaro kala kulmay ayaa noqon doona dalkii labaad ee guuldaro ku furta tartanka World Cup-ka adduunka tan ilaa xulka Spain oo sidaas sameeyay sanadkii 2010. guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan hadad ku cusub tahay like inoo saar subscribe dhaysiina share garay si barnaamijkan asxaab badan u gaaro mahadsanidina.